waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabtayda ku xidhan channelkayga YouTube-ka waxaan maanta halkan aan inigu hayaa barnaamij ah dhalinyar markaan nahay maxaa inooga baahan yahay inaan nolosheena ku soo dhisno ama aan ku soo kobocno. waxyaabaha inooga baahan yahay dhalinyar markaan nahay waxaan nahay jiilka waqtiga ku jira ee ugu firfircoon intuu ilaahay aadamaha abuuray. waqtiga uu kaga jiro dadaal inuu qofku la yimaado wixii uu dadaalayna marka uu waayeel noqdo si uu u calfado uu baahi bilaadan u hoosgelin. marka waxaa inooga baahan yahay inaan halkan la imano ama aanu ku qorshaysano aan ku tashano waa 4 arrimood. afartaa arrimoodi waa kow, waa lagu abuuray inaad ilaahay ku xidhnaatid, waa lagu abuuray inaad ilaahay caabudid yaa lagaga baahan yahay. waa qodobka koowaad, inaad ilaahay ku xidhnaato ood xadhigga ilaahay aad qabsato. waa qodobka labaad, inaanad dhex dabaalan balwadaha kala duwan ee kala nooca si aanad u noqon qof mukhaadaraad isticmaala. waa inaanad ku dhex dhicin mawjadaha balwadda. waa qodobka labaad. waa inaad aqoontaada diineed iyo tamaadiba inaad kordhisatid ood waxbaratid ood dadaashid ood qeyrkaa wax la qabsatid. waa waxyaabaha lagaaga baahan yahay inaad samaysid. waa qodobka saddexaad. waa qodobka afraadoo waa inaad himilooyinkaaga aad hirgelisaa. waa inaad yoolkaaga aad hirgelisaa. waa inaad taargetkaaga ujeeddadaada nololeed inaad hirgelisaa si aad u noqotid qof foojigan, dareen leh, waxqabadkiisu muuqdo, dadaal badan inaad noqotid. waa waxyaabaha lagaaga baahan yahay asxaabtaydan daawanaysaay inaad ku dhaqantaan. waa shay loo baahan yahay. haddii aan wax soo gudbinayno waa in wax dadka u anfaca, dadka wax tar u ah, dadka wax baraarujin kara inaan soo gudbino waa waajib annagana saaran. asxaabtaydan waxaan igula dardaaramayaa maanta inaad 4taa qodob ee soo sheegay aad noqotaan dadkii ku dhaqmi lahaa, dadkii hirgelin lahaa, dadkii noloshooda wax ka bedeli lahaa inaad noqotaan iyaan anu nigula talinaya. sidaa awgeed maanta barnaamijkaasaan jeclaystay inaan idiin soo gudbiyo oon idinla wadaago dareenka anu aan qabo ee ku wajahan dhalinyarnimo. maxaa wax loogu qabsan karaa, wax lagu bedeli karaa, taasoon ani iu dhalatay inaan soo nidaamiyo oon soo darsiyo oon isku soo dubarido sidii aan idinka wax nigu soo kordhin lahaa. waad garanaysaan, idinma dhaamo. waa waxaad ogtihiin, waa waxaad bulshada dhexdeeda aad ka aragtaan. 4taa qodob qof garanaynin ma jiro, waa la wada garanayaa. laakiin habdhaqankii iyo baraarujintii unbaa inoo dhiman. taasina inta social mediaha ku jirtay waa in inta sideedoo kale ah ee ila midkahay ay idinka waxay nigu soo gudbiso. waa cidda mas-uuliyaddeeda ay saaran tahay. waata kale waa in la helaa mujtamac baraarugsan, wacyigelisan, dareen leh, naxariis leh, dhalinyartiinan daawanaysa ay ku dheehato ayaa loo baahan yahay. marka waxaan jeclaan lahaa maanta inaan intaa inigu soo koobo. barnaamijyadan iyo barnaamijyo kale oo lamid ah intaan gaari doono
channelkayguna inta shuruudihii YouTube ku xidhay uu ka bixi doono dhiirigelin, wacyigelin, istoosin, wax isku sheeg, tala kala qaadasho, tala isa siin ayaanu ku daadihin doonaa barnaamijkeena. markaas intiina daawanaysa barnaamijyadeenu way badnaan doonaan, reactionno ayaan bixin doonaa, waraysiyo ayaan qaadi doonaa, majaajilooyin gaagaaban ayaan samayn doonaa. marka intaas idinkuna inaad ii samartaan ayaa loo baahan yahay. intiina channelkayga ku cusub waad mahadsantihiin daawashada aad daawateen. inaad subscribe laakiin aad iga caawisaan baan u xiisa qabaa, taasina waa dhinaciina. waana mahadsantihiin. intiinii hore ay daawanaysay ee ku xidhnay channelkaygana waad mahadsantihiin ayaan idin leeyahay mar labaad. saas ayaan maanta halkan aan kusoo koobayaa barnaamijkaas aan soo darsay soo iclaamiyey ayaan maanta halkan igu soo koobayaa. sheerta iyo like-ta iyo subscribe-tuna waa dhinaciina. asalaamu calaykum waraxmatullahi